I don't know waxa ilaa is taxabad loo iska gamay marka خلاص marka alxamdulillah ma qofka kala geeska loo fadhiyay xabad saddexaad ugu gudubtay ajirka u dhacday marka yarkaas aad u daran Allah cafiyo yar guri la degin oo ahaayo asiga cusubnisay ahaayeen marka xaladiisa la hada waxa ka sheegno waa dimbi waay dimreef Allah warigo qadira aan ku dhacday khalaas kulan wacan wanaagsan idil ahaantiin daawadayaal ku soo dhawaada qodobo gaar ah oo ku eegi doono xaaladda Bilaal Bulshaawi oo ah wiil dhalinyaro ah isla markaana baraha bulshada caanka ah oo dhaawac ka soo gaaray dhanka madaxa wiilkani oo baraha bulshada aad caan uga ah isla markaana ay dhalinyarada isticmaasho barta TikTok u aqaanaan madaxweynaha TikTok intaan u guda gelin waxaan ka codsanaa fadlan nagu soo biir channelka subscribe saar isla markaana muuqaalka la wadaag asxaabtaada adiga oo mahadsan aragtidaadana qaybta commentiga nagula wadaag Bilaal Bulshaawi waa wiil dhalinyaro ah isla markaana inta badan dhalinyarada isticmaasho social media ay si weyn u garanayaan waxa bari inoo dambeeyay soo kordhayay dadka in muxuu ahaa bilihii inoo dambeeyay ba aan ilaahnay 4 bilood inoo dambeysayba in la hal siibo dadka caanka ah wariyaasha iyo waliba dhacdooyin kale oo aad u fafoolxun kuwaasi oo dadka shacabka lagu kacay oo la garan waayay cid ka dambaysa iyo cid mas'uuliyadeeda iskale laakiin haddii aan dabcan inagu waxyaabihii xog aan helay aan idin la wadaagno ama aan soo gudbino inaga oo ka fogaanayna waliba waxyaabaha mala awaalka ah ee ka jira social media ayaa waxa ay tahay Bilaal Bulshaawi waxa u soo galay si degdeg ah isaga oo makhaxid ka qaxweynaya ama dhex fadhiya abaaro 9 habeenimo ama hadaan si kale u dhahno 3 saac ee fiidnimo marka waxa uu cabay halkaasi shaah makhaxido kamid ah makhaxido dhalinyaraha markaasi ay ku caawiyaan dhalinyartu ay ka caawiyso ayuu fadhiyay isla markaana waxa si degdeg ah ugu soo galay dad aan la garanayn oo hubaysan kuwaasi oo si degdeg ah ugu furay rasaas lama filaana 3 xabo ayaa lagu muxuu ahaayay riday Bilaal Bulshaawi halka ilaahi uu ka badbaadiyay oo waxay doonayeen kuwaasi in ay halka dhigaan Bilaal Bulshaawi oo batatan ba ay dilaan laakiin tii alle ayaa qornayd oo ma uusan dhiman madaxa ayayna qayb ka martay 2 xabo 3 xabo lagu riday 2 xabo ayaa isku meel maray oo garab maray sargafna ugu dhacay waxa sidoo kale xabadii garab martay ama dhaaftay ay ku dhacday saaxiibkii oo sida la soo wariyay ama la sheegay ay isla degan yihiin guri isla markaana ay isgarab fadhiyeen dhalinyaradani waxa barihi inoo dambeeyay aad ogeedeen in dhowr dhalinyaro ah oo kale oo sidaas oo kale ah oo caan ah hadii aan soo qaadano yarkii dhalinyarada ahaa aadna ay dadka muxuu ahaay baraha bulshada isticmaalay u wada garanayaan ee la oran jiray atooraha badda oo isagana muxuu ahaa saaxiibkii u dilay iyada oo markii hore muxuu ahaa meel kale loo soo mariyay oo shabaab dilay wax sidaas ah ay ahayd laakiin ugu dambeyntii ay noqotay in wax dilay uu noqday saaxiibkii saaxiibkii laftirkiisa tiiq alla iyo qadarta rabbiha fusho laakiin dad ayaa adeegsanayo waxa kani ma ahan wax qofka uu isaga marka iyada furaha ha ka dhumo qof kariyo mar alla markii furaha u dhacayana waxa loo maqashiyo adoonka laakiin waxa jirta oo u nusbeenayna inagu in ay tahay arrimo ay dad kale ka dambeeyaan marka hadii aanan ka gudbin toobigeena oo ah dhalinyarada la dilahayo khaasatan magaalada Xamar dhalinyarada aad iyo aad ay cabsi u soo wajahday gaar ahaan kuwa baraha bulshada isticmaala moolalka ugu shidan waa meelaha inta badan ay ka soo gudbiyaan majaajilada iyo maanweelada dhalinyarada kuwaasi oo baraha bulshada isticmaala ama ay inta badan ku kulmaan saxaafada wariyaasha iyo waliba dadka markaas iyada baraha bulshada saameynta ku leh maadaama meediyuhu uu yahay muxuu ahaa ismaqalka ama is aragga bulshada iyo isku xirka mujtamaca sidaas darteed Bilaal Bulshaawi waxa la sheegayaa ama lagu eedeynayaa in dabcan dadkii meesha soo galay ay ahaayeen kuwa dhanka ciidamada muxuu ahaayay nabad sugidda ee magaalada ka tirsan kuwaasi oo loo adeegsaday lama aqaan cid adeegsatay waa la adeegsaday ayaa dabcan inagu markaasi na soo gaadhay oo dad ayaa adeegsanaya baraha bulshadana waxa ka jiro in qabiiladu muxuu ahaayay qabiiladka Soomaaliyeed ay dhalinyaro markaas iyada ah si xun u isticmaasho social media kuwaasi oo live TikTok inay lacag ka sameeyaan inta badan u soo gala kuwaasi oo inta badan u soo gala muxuu ahaa fan iyo inaga ayaa laandheera ah iyo anaga ayaa ka laandheeraysan oo mararka qaar ay dhacdo xitaa in diinta loo gafo oo nabiga kaleey salaatu wasalaam la waxyeeleeyo oo muxuu ahaa loo geysto jaaifo ama aflagaada loo geysto oo inta badan aad ka baxsan tihiin waxaasi oo dhan markii laga soo tago haddana waxa jirta
waa la isweydaarsan oo qofkii dabcan muxuu ahaa lifeka aad isku heshaan ama aad halkaasi isku aflagaadaysaan waxaa macquula qofkani haddii uu garanayo cid uu ku adeegsado oo marka iyada ana uu kaaga argooso inuu ku adeegsan karo laakiin dadkaasi oo waxyaabahaasi oo dhan waxaan odhan karnaa waxaa ka dambeeya dad ayaa ku shaqaysanaya shalay waxaa la hadalhayay oo baraha bulshada taallay nin ka mid ah ama muxuu ahaayey maxkamadda sare ee dalka maxkamadda sare ee muxuu ahaayey dalka Soomaaliya nin ka mid ah oo muxuu ahaa markaas iyada ana sheegayay in dhibka waxa ku wada ay yihiin odayaasha odayaal dhaqameedka ay Soomaalida samaysteen oo ay ula magac baxeen ugaasyada odayaal dhaqameed iyo waxyaabo sidaas ah kuwaasi oo dabcan haddii qof la dilo isla markiiba ku xugmiya in mag ay qaataan taasi oo weliba uu raaciyay in qofka isaga ah haddii xitaa mag laga qaado ama odayaasha ay mag soo qaadaan in aysan gaarin familkii ama caruurtii uu ka tegay shakhsiga isaga ah oo ay qaybsadaan iyagu kuwaasi oo ugu dhimanaya kaliya haddii ninkaas la soo dilo afqalalan meesha lagu kala tago aysan jirin wax soo gaaraya laakiin dhowr kun oo dollar oo uu helay kaliya uu dhaafsanaya qofka dhiiggiisa iyo muxuu ahaayey yaddi lagu lahaa dambiilaha ilaahay waa uu noo baneeyay labada dhinacba qofkii in la dilo iyo in la cafiyo oo markaasi mag la qaato laakiin mar alla markii dadkan dhalinyarada ah oo dabcan iyo waqtiga aan joogno oo dilka uu iska noqday wax muxuu ahay iska caadi uu iska noqday haddii qof walba qof dila mag baa laga qaadi la yiraahdo oo uu kusii xisaabtamo mag in laga bixinayo waxaa dhici karta in dadkii muxuu ahay sidaas iskugu gaaguumbeelaan marka almuhim dad ayaa sheegayaan in la garanayo dadkii xalay rasaasta ku furay Bilaal Bulshaawi ee dhalinyarta kale halka ku caweynaysay oo yihiin kuwa la aqoonsanaa walow ay dad kale oo meesha fadhiyo xogta ay beeninayaan oo ay leeyihiin indhaha ay u xirnaayeen laakiin dad badan ayaa waxay sheegeen in la garanayo asal iyo raad meesha ay ka imaadeen iyo cidda markaasi ay u shaqeeyaan ay adeegsanaysa marka haddii markiiba la garanayay qofkii oo uu yahay qofkii qof dambiile ah oo halkaas oo kale wax ka fuliyay oo la garanayo uu yahay ma qaadayaan Soomaalida tilaabo degdeg ah waxay markiiba bilaabayaan meeraysi iyo waa qabiilkee iyo odayaashiisa u yeera halkaasi oo laga yaabo in qofkii halka ku waxyeeloobay lagu baabi'iyo gebi ahaanba xuquuqdii markaasi uu lahaa iyo dhiiggii looga baahnaa in markaas iyada ah shakhsigani looga qaado marka almuhim haddii aan markaas iyada ah ujeedkeeni gaabadeena u soo gudubno waxaan leenahay dhalinyarada meel kastoo joogaan ha fogaadaan oo ha iska ilaaliyaan waxyaabaha markaas noloshooda iyo naftoodaba halis ku ah ha ka fogaadaan meelaha muxuu ahaayey dabcan dadka waxyaabahaas oo kale adeegsada ama muxuu ahaayey laga cabso dadku isgaranayaan dad waxaa jiro dabcan waxyaabo yar loo adeegsado qof waxaa jiro ku dhaafsan kara $1 oo haddii $1 maanta gacanta loo saaro kusoo dili markaas ayada ana marka waxyaabahaas oo dhan wixii keeni kara in laga fogaado ayaan bulshada ku gubaabinayna dhalinyarada oo ay ka fogaadaan waxyaabaha u keeni kara dhimashada iyo dhaawaca iyo weliba waxyaabaha kale ee dhaqan xumada ah ee noloshooda caqabada ku ah adiga aragtada qaybta commentiga nagula wadaag ilaahna u soo bari Soomaaliya in uu ka qaboojiyo dabka ka shidan iyo ummadda sida bila sababka ah loo dhameynaya ee habeen imaalin tacsidoodii iyo muxuu ahaa ay socoto dhiig baxooda uma adkeysan karna intaas ka badan ilaahay ha ka qaboojiyo dabkana ha ka damiyo Soomaaliyana danteeda ha garansiiyo aamiin adiguna qaybta commentiga nagula wadaag aragaaga